Okay, casharkeena wuxuu ku saabsan yahay order of operation. Order of operation waxa weeye xisaabtu markay isugu jirto nooc walba ku dhufasho, u qaybin, power, catcher, ku dar, waxaas oo dhan markay isugu jiraan qaab looga shaqeeyo ayaa jira. Marka waa order sida usoo kala horeeyaan oo loo waxaynayo. Markasta oo wax la sameynayo xisaab ay isku jirto haddii uu ku jiro parenthesis bracketka oo sida kan oo kala ah, asaga ayaa u horeeya number 1 ah. Waxa ku xigi doona exponent oo ah midka power hadduu saaran yahay hadda nooguma jiro, laakiin example-ada baan ku arki doono. Waxaa saddex ku soo xiga ah xisaabta isku dhufashada oo multiplication-ka ah iyo division-ka, labadooduna qaab bay leeyihiin loo soo kala hormarin doono. Waxaa kaloo ku xiga isku darka iyo kala jarka, addition and subtraction, ayaguna qaab bay leeyihiin loo kala hormariyo. Marka tusaalahan ayaan hadda haynaa. Waxaanu samayn doonaa tusaalayaal kale oo loo samayn doono qaabab kale. Aan fiirino marka sida ay u soo horeeyaan. Number 1 waxa ah baan niri waxa la yiraahdo parenthesis-ka. Okay, xisaabtaada markay saan kale ku tahay parenthesis number 1 way waa inaad raadisaa meesha parenthesis kugu jiro. Okay, parenthesis halkaan ku jira. Xisaabtan dhexda ku jirta waxba ha arkin oo hadda u dambaysa xakan yiraahdo subtraction, laakiin waxa ka horeeya muhiim ah midkan inta parenthesis ku jirta gudaha inaad ka shaqeyso weeye. Okay, asaga ayaan ka hor shaqeynaa. 7 laga jaray 1 waa 6. Okay, intaan sideeda ayaan usoo qoranaynaa. Parenthesis-ku sidaan nii sheegnay ma haddii number ku dhagan yahay waa iska dhufasho caadi ah. Waxaan leenahay parenthesis ba iska dheh ama direct ku dhufasho caadi ah uga dhigo sida adiga aad jeceshahay. Waxa macni ma bedelayso. Waxa weeye 2 lagu daray 5 waxay la mid tahay yoona laga sugayaa. Okay, parenthesis-ki waan sameynay. Waxaan imaanaynaa waxa ku xiga wax parenthesis hadda nooguma harin. Waa ka soo degaynaa waxa ku xiga waa exponent. Wax exponent ma ku jiraan ma waan ka gudbaynaa. Exponent nooguma jiro. Multiplication ayaan imaanaynaa. Waxaan fiirinaynaa multiplication meesha uu jiro waan arkaynaa xisaabteena ma halkan waa ku dar waa laga horeeya isku dhufasho. Okay, halkan ayaa isku dhufasho ku jirta. Asaga ayaan sameynaynaa si aan u aragno wax next noqda asagana. 2 lagu dhuftay 6 waa 12. Okay, inta kale sideeda ayaan usoo qoranaynaa. Okay, maxaa ku xiga? Division ma hayno kuma jirto meesheena, laakiin wayna ka gudubnaa. Afraad waxa ah isku dar iyo kala jar. Okay, waxaan fiirinaynaa isku dar iyo kala jar meesha ay kaga jiraan. Okay, waxaan haysanaa isku dar wax laakiin ka jara ma haysano. Okay, 5 lagu daray 12 waxay noqonaysaa 17. Okay, xisaabteeni saas ay ku dhamaatay. Marka ay noqoto waxa u soo horeeya parenthesis-ka oo ah sidaan oo kale. Waxa ku xiga exponent oo hadda aan ugu jirin laakiin tusaalayaasha dambe ku jiri doona. Waxa ku xiga multiplication iyo division. Okay, haddaba multiplication iyo division sabay kaliyihiin. Marka kasta waxaad ka bilaabaysaa dhanka laftiga calaamadda kuugu soo horeysa waad arkaysaa kaas ayaad ka shaqeynaysaa. Haddii ku dhufasho soo horeyso ku dhufashada ayaa soo horeysa. Haddii ay soo horeyso division-kuna